السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين سلام كديب ساكنا وحان إذين سداق قصة عصب marka koobaad waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo gabadha walaashay ah ee sida geesinimada leh ee faahfaahsan qisadeeda inoo la wadaagtay. idinkana waxaan idinka codsanayaa inaan qadarino dareenka dadka qisooyinkooda nala wadaagay oo aan si xushmad leh ula talino. dabcan noloshu waa wada cashar, kuwii kuwaana qaata wixii soo mara allaha naga dhigo. qisadiina waxay ku bilaabantay sida tan. sheekadan aan ku soo qorayo abaayo anay igu dhacday, waxaana laga yaabaa inaadan rumaysan ama dadka aad la wadaagi doonto aysan rumaysan, laakiin wallaahi waxaan kuugu sheegi doonaa sidii wax kastaaba u dhaceen. 15 bishii July 2015 ayaa Facebook waxa ay u soo darsaday wiil aanan aqoon u lahayn, mana jeclayn in aan ku kalsoonaado ama la sheekaysto qof aanan aqoon hore u lahayn oo aan internet iska baranay oo kaliya. laakiin way dhacday, wuu isoo salaamay goor habeen ah oo xilli dambe ay ii tahay, waana ka qaaday. maalintii xigtay si daacad ah ayaan isku baranay oo walaaltinimo iyo Soomaalinimo ah, wax walba oo run ah oo nolosheeda ku saabsan waan u sheegay, waayo beentu markasta waa xaraam. haddana waxay ahayd waqti cibaado, bishii Ramadaan 10keedii dambe ayaa lagu jiray, sida daraadeed isna wax kasta oo ii sheegay waan aaminay. waxaan kala joognay 2 wadan oo aad u kala fog. barasho fiican kadib wuxuu ii soo bandhigay xiriir guur, waana ka ogolaaday. taas micnaheedu ma ahayn inaan ku kalsoonaaday, balse waxaan islahaa bal horta iska baro oo fahan. shakhsiyadiisu wuxuu ahaa qof dabeecad fiican, furfuran, qurux badan, qoys wanaagsan oo diinta ku fiican ka soo jeeda. wuxuuna ahaa qof si fiican diinta u bartay, waayo maalin ayuu isoo wacay ayadoo suuratul Al-Baqara aan dhageysanayo, kadibna wuu la akhriyay. wuxuuna ii sheegay inuu 114 dhameeyay iyo waliba tafsiirkooda. hadalka yaan ku dheeraane waxaan arkay anoo wiilkii jecel ilaa xadna ku kalsoon, isaguna sidaas la eg ayuu ii sheegay. inkastoo aan aad u kala fogeyn, haddana waxaad moodaysay inaan meel wada joogno. wuxuu isoo wici jiray markuu sidaa shaqada uga soo baxo ilaa uu ka gamayo, hurdada marka uu ka soo tooso ilaa uu shaqada ka galayo. wuxuu shaqayn jiray saacado badan, anigu waxbaan baranayay xilligaas waana shaqayn jiray sidoo kale. haddana waqtigiisu ma aanan waayi jirin, si kastoo aan u kala fogeyn. saacadda iyo daqiiqada aan ku jiro ee wadanka aan joogo way u xisaabsanayd, isna tiisu way ii xisaabsanayd. wuxuu igu yiri wadanka aad joogto ayaan imaan doonaa xilliga fasaxayga si aan isu guursano. wuxuu ii ballan qaaday inuu weligii jeclaan doono, uusan cidna igu doorsanaynin. waan aaminay. wuxuu kaloo ii ballan qaaday haddii xiriirkeena wax ka sii noqdaan dhankiisa inuusan iga qarin doonin. anna sidaas la eg waan u ballan qaaday. hadalkii oo kooban, kalsooni 100% ah ayaan ku qabay. وحتى قف مضن واحد زيده والوزاقينا وهايها أتون. وقت بدن كالقعن ولا أحسنيت ودويس إيوه دندي دندي عندي وبيك عير. وايه احتوي نوضيو وحيلا الترتيب كان وي مرورا. وقتي بدن كالقعن
maalin maalmaha ka mid ah anoo shaqada u sii socda ayuu isoo wacay waan isbariidinay kadib waxaan dhahay shaqo ayaan gelayaa markaan ka soo baxo ayaa inoo ballan ah markaan ka soo baxay waan waayay ilaa maalinkii xigay ayaan ka warsugayay wuxuu maalinkii dambe ii sheegay inuu gobol kale aaday oo arrimo ka galeen isbuucna uu ku maqnaan doono sidaa awgeed uusan si xor ah ila hadli karin muddadaas maadaama uu dad marti u yahay wax dhiba uma arkin balse waxaan dareemayay xilligaas in naftayda qayb ka mid ah ay safar dheer iga gashay isbuuc kadib wuu soo laabtay laakiin isbeddel weyn ayaan dareemay waan jahwareeray meel wax ka jiraan baan fahmi waayay mana ihi dadka arrimahooda khaaska ah dadka kale la wadaaga waan yaabay haddaan waco taleefanka ma qabanayo qoraal kama soo jawaabayo hadduu qabtana ama ka soo jawaabo khadka iga xun waan hurdaa iyo sheekooyin aan fahmi waayay oo aanan ku aqoon ayuu bilaabay isku wadan ma joogno cidaan u diro ma aqaan qof aan la wadaago male stress iyo inaan su'aalo badan isweydiiyo ayaan bilaabay maalinkii dambe ayaan u duubay message cod ah oo aan wax kasta oo aan dareemayay ugu sheegay aana ku xasuusinayo ballantii ahayd inuusan iga qarin doonin haddii wax iska beddelaan dhankiisa message-ka xataa inuusan gaarin baan arkay caadi baan u wacay si degan ayaan u weydiiyey maalmahan ma internetka ayaa kaa xun abay inaan been kuu sheego ma rabee maya igama xuma ayuu iigu jawaabay waxaan ku yiri haddaba dhageyso codka aan kuu soo duubay jawaabna isoo sii aniguna aad baan u xanaaqay xilligaas wuu isoo wacay in ka badan 10 mar laakiin kama qaban waayo ma rabin anigoo xanaaqsan in hadallo xunxun ay iga tagaan ugu dambeyntii waan ka qabtay waxaan dhahay iga jawaab codkii wuxuu dhahay saad wax u malaysay waad u hadashay hadalkaagiina qalbiga ayuu igubayaa laakiin arrintu taa way ka duwan tahay mana doonayn inaan cidna la wadaago dhibku keligay inuu igu ahaado ayaan rabay laakiin hadalkaaga dartiis wax walba waan kuu sheegayaa 10 bilood ka hor waxaa dhintay wiil adeerkay ah wuxuuna ka tegay xaas iyo carruur xaaskaas oo abtigay dhalay ayaa reerkeenu igu dhaheen guurso arrintaas ayaan maalinkii dhaweyd u aaday gobolkaas si aan adeerkay oo halkaas jooga ugu soo qanciyo in aanan gabadhaas guursan karin waayo abtigay oo gabadha dhalay iyo hooyaday oo Soomaaliya jooga ayaa arrinta cadaadis ugu saaray adeerkayna waan isku soo xanaaqnay reerkiina wuuba igu sii diray oo wuxuu ku dhahay halkan buu iigu yimaaday isagooba ihandadaayo hooyadayna aad bay iiga xumaatay aniga su'aashaydii koobaad waxay ahayd adiga go'aankaagu muxuu yahay wuxuuna ku jawaabay anigu gabadhaas ma guursan karo mana doonayo qof aanan rabin inaan nolosha la qaybsado qof aan adiga kugu doorsanayaana ma jiro maxaad ka samayn doontaa ayaan weydiiyey wuxuu dhahay hooyaday ayaa iigu daran oo igu adkaynaysa si kasta waan ula hadlay waan ku ooyay xataa wayna ku adkaysatay balse waan ka aamusi doonaa iyada iska digi doonta waxaana laga yaabaa gabadhu inay dhahdo ninkan aan i rabin maxaa iiga daba wadaan oo ay saas xaaladu u qabowdo السماء جعيكيو إلسي عطيتي السماء جعيكيو إلسي عطيتي شحي دقان كوا عمره الرئيسة شحي دقان كوا عمره الرئيسة دليليو ذنبي أنيقا أنقلي تدوجيت إيقالي إباتا أي أبوري تلايقا أفتوبي نانا كلا إذيها تلايقا أفتوبي نانا كلا إذيها
warkii oo kooban waxaanu isku raacnay inaanan xiriirkeena u joojin arrintaas darteed. intii hore in ka badan ayaan ku sii kalsoonaaday markuu dhibkiisa ila qaybsaday. jacaylkii ayaa sii siyaaday, sababtuna waxay tahay waxaad jeceshahay marka lagugu qabsado waad sii jeclaanaysaa. ilaa bini'aadamka ayaa saas iska ah. bil kadib ayaan haddana dareemay inay wax khaldan yihiin. wuxuuna ii sheegay in hooyadii ay dhahday go'aan baan kaa rabaa, haa ama maya. inta ka horraysa ha ila soo hadlin. haddaad maya dhahdo habaarkayga ayaad qaadatay, ismana sheegano. waxaan weydiiyey maxaad samayn doontaa? wuxuu i dhahay ma la hadlayo. bil ayuu ka aamusnaa hooyadiis. arrintani aad bay ii warwargelisay. aniga kama ahayn raalli inuu hooyadii ka aamuso, balse wuxuu ii sheegay xataa haddii aanan noloshiisa ku jiri lahayn inuusan guurkeeda ku faraxsanaadeen. dhammaadkii 2015 ayaa la joogaa. waa xilligii aan ku ballannay guurka. arrintiina waa sii xumaatay, aniguna waan sii jeclaaday. markasta waxaan dhahaa talow goorma ayaa ilaahay faraj furi doonaa. ma ahani saake walla saadambiyo beri ma ahani saake walla saadambiyo beri sakuba wayma sidaan ugu sabaye nafta ugu sabaya sanadku idamaada waxaan ku dhahay gabadha wac u sheeg arrinta, waxaa laga yaabaa inay ku fahanto. wuxuuna ii sheegay in qorshaha eedadeed iyo aabaheed ay ku qanacsan tahay. xaaladii way sii adkaatay. mar waxaa i murugelisaa sidaan uga maarmi karin, mar waxaan ka naxaa dhibka isaga haysta. wuxuu ii sheegay inuusan habeen seexan, maalinna wax cunin. wuxuu kaloo i dhahay haddii aanan iimaan lahayn dabaq ayaan iska tuuri lahaa murugadan darteed. ugu dambayntii wuxuu dhahay hooyadayoo iga dheer intaas ka badan kama aamusnaan karo. maxaad jeceshahay inaan dhaho haa mise maya? niyadda ayaan iska dhahay maya ayaa ii roon, laakiin in habaar wata sideed yeelaysaa? waxaanse ugu jawaabay arrintani adiga iyo qoyskaaga ayay idiin dhaxaysaa, mana rabo inaan soo dhex galo, balse kolley habaar waalid ma fiicna. anigoo ogaa inay diiniyan khalad tahay in waalidku uu ilmihiisa ku qasbo guur uusan rabin. kama dambaystii wuxuu i dhahay dantu waxay igu qasbaysaa inaan haa iraahdo. adiguna walaashay ayaad ahaan doontaa, weligeyna kuma ilaawayo. hadalkaasi aad ayuu ii dhaawacay. waxaad moodaysay inuu cirka jeex igu soo dumay. الشبان الكيبان عطينا بفضائل والمقشين عيني ونقبين عن فيقي بشاعرين وواقف waan ismaca salaameynay annagoo ku heshiinay inaan ahaano dad walaalo ah. maalinkii dambe wuxuu ii sheegay in hooyadii dhakhtar la dhigay, reerkii oo dhanna ay hooyo xanuunkeeda isaga dusha ka saareen oo ay dhaheen hadday dhimato adiga ayaa lagu haystaa, waad ku caasiday, warkeeda ayaa diiday. anoo aamini lah ayuu wuxuu ii soo diray meesajyadii ay ku wada hadleen isaga, walaalkiis iyo abtigiis. sidaasoo ay tahay ma runbaa, ma riyaa, ma beenbaa baan isweydiiyaa mar kasta. ileen qof wax jecel ma quustee. qalbiga ayaa dhaawac fara badan ka dareemayaa. 2 mar oo horena niyad jab xun ayaan la kulmay
tani waa tii saddexaad markaan kan ku kalsoonaanayay waxaan iska dhaadhiciyay kan haddaad dhibaato kala kulanto nin dambe ha shukaansan runtii xaaladda aan ku sugnaa qoraal kuguma fahansiin karo halkana kuma soo koobi karo shakhsiyadaydii iyo dadnimadaydii aan lahaa ayaan hilmaamay shaqo waan ka niyad jabay hawshii guriga iyo naftaydii xitaa waan ilaaway ilinta indhahayga ka daadatay hore igama quban intaan abid noolaa inta loo socdaale sareedada adduunyada inta loo socdaale sareedada adduunyada dadku saaqsigeediyo darbuursi maraadsado haddaan sacayga joogaba usaadaaliyaanaye maalinkii dambe waxaan u diray message aan ku canaananayo oo aan leeyahay waxaan oo dhan adaa ka mas'uul ah maxaad maalintii koowaad iigu sheegi weyday inay tani imaan karto maxaad u saadaalin weyday ilaa reerkiina waa taqaanay xumaaniga ma ahayn balse culayskay saaran ayaan u dulqaadan waayay maalinka aan message-ka noocaas ah u dirayo wuxuu ii sheegay inuu isbitaal ku jiray fiidiyoo buu ii soo diray laga duubay isaga oo dhakhtarka yaala wuxuu ii sheegay inuu tamar beelay fikir hurdo la'aan iyo cunto xumi darteed wuxuu igu dhahay jacaylkaaga haddaan waayay yaan walaaltinimadaada waayin cid aan la hadlaa ma jirto reerkii oo dhan baa igu kacsan xataa waxaa la iga diiday hooyaday lacag lagu daaweeyo inaan u diro waan ka ballan qaaday inaan walaaltinimo markasta ula hadlo balse waan ka soo bixi waayay ballantaas waayo aniga ayaa dhaawac fara badan dareemayay waxaana dhib ugu ahaa codkiisa inaan maqlo waxaan ka dalbaday in aanan wada hadlin in muddo ah inta xaaladdu ay iska beddelayso عشق روح وبلا كل واحد ما يا موزي هاتو عقاسا حكيلي أمسيكي بشاعرين وعواقب وينا أمسيكي بشاعرين وعواقب وينا markuu xiriirkeenu dhammaan rabay ayaa wuxuu maalin igu yiri anigoo naag leh ma i guursan lahayd haana ma dhihin mayana ma dhihin balse waxaan uga sheekeeyay qiso hadda ka hor soo martay oo micnaheeda loo fasiran karo maya markaanu kala harnay kadib isbuuci hal mar ayuu isoo salaamaa maalmihii hore xataa isagu ma uusan jeclayn in aanu wada hadalno balse markuu xaalku sidaa ahaa muddo bil iyo xoogaa ah anoo weli sidii murugo u dareemaya balse aan awood isu yeelayo ayuu isoo wacay markaanu isbaridinay kadib wuxuu ii sheegay inuu soo fiicnaaday oo inuu ila hadlaa aysan wax dhib ah ku hayn balse aniga waa ay idhibaysay waanse iska qarsanayay su'aalo iska kaftan ah ayaan isweydiinay anna waxaan weydiiyey xaas labaad inaad yeelato niyadaada ma ku jirtaa wuxuu dhahay maya waxaan haddana dhahay aniga haddaan waddanka aad joogto imaan lahaa ma i guursan lahayd wuxuu dhahay maya sababtoo ah buu yiri weligay niyadeyda ma gelin inaan laba naag isla guursado arrintani waxay igu beertay fikir hor leh oo hadda taagan la yaab bay igu noqotay waxaan isweydiinayaa haddii uu ku jecel yahay oo aad jeceshahay muxuu kuu diiday hadday xaqiiqo ahaan lahayd soo saas uun kuma uusan diideen
ilaahay baa og quluubta dadka wixii ku jira laakiin intaas oo aan kelmad been ah ku jirin ayaan la soo kulmay ilaahay dartiis baan isaga samray sunnayaal fara badan ayaan tukadaa qisooyinka ambiyada iyo quraan fara badan waan dhageystay wali waan ilaawi la ahay abaay qisadaydii waa intaas waadna la wadaagi kartaa qof kasta waxaana idinka rajaynayaa talo bixinno wanaagsan